بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo ku soo dhowaada wararkii caalamka ee viruska corona iyo Finland. aan ku horeyno dalkan Finland waxaa maanta oo Jimco ah laga helay dalkan Finland dad tiradoodu ay gaarayso 189 qof oo qaba viruska corona. waxaana taasi tirada guud ee dadkan laga helay Finland ay noqonaysaa 13,133 qof. meelaha ugu badan ee cudurku aadka ugu faafayo waa magaalada Helsinki iyo gobolka Uusimaa oo laga helay 112 qof. waxaana ay kala yihiin Helsinki oo 63 qof ah, Espoo 23 iyo Vanta oo 11 ah. sidoo kale meelaha aadka looga helay waxaa ka mid ah Vaasa oo laga helay 19 qof iyo gobolka Varsinais-Suomi oo isna laga helay 18 qof. hay-adda THL ayaa sheegtay in hal qof uu u dhintay viruska corona awgiis dalkan Finland arbacadii kadib, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 351 qof. daryeelka isbitaalka waxaa koronaha dartiis ugu jira haatan 50 qof. 10 qof oo dheeraad ah ayaa ku soo biiray tiradii ku jirtay daryeelka isbitaalka maalintii arbacada ahayd ee aynu soo dhaafnay. qaybta xaaladda aadka u daranna waxaa ku jira 6 qof. dhakhtar sare oo ka tirsan maamulka waaxda caafimaadka Helsinki iyo Uusimaa ee isbitaalka jaamacadda Hus oo ka digay in xaaladda viruska ee caasimadda iyo agagaarkeedu ay meel adag ku sii socoto. dhakhtarka sare ee ka tirsan maamulka waaxda caafimaadka Helsinki Uusimaa oo la yiraahdo Teppo Heikkilä oo u waramaya kanaalka MTV3 ayaa sheegay in xaaladda Helsinki iyo gobolkan Uusimaa oo dhan ay ku dhowdahay heerkii faafiska aadka u ballaaran ee cudurka corona. waxaana suurtagal ah buu yiri dhakhtarku in marka heerkaas arrinku gaaro la qaato go'aano cusub oo ka adag kuwii hore oo looga hortagayo faafista cudurka. khamiistii tala soo jeedintii ay dowladdu soo saartay waxay ahaayeen buu yiri kuwo la socda xaaladda cudurka haatan uu marayo oo ah marxaladda ama heerka karaar qaadashada. laakiin marka loo wareego heerka faafista aadka u ballaarana tala soo jeedintaasu intii hore waa ay kasii adkaanaysaa. tusaale ahaan waxaa la joojinayaa dhammaanba munaasabadaha guud, xarumaha guud ee dowladda iyo kuwa dadku ay isugu yimaadaanna waa la xirayaa. Dr. Teppo waxa uu sheegay in qiimeynta ay maanta sameeyeen kooxda dhakhaatiirta ee hawshan u xilsaaran ay sheegeen in wali lagu guda jiro marxaladda ah karaar qaadashada cudurkan safmarka ah. laakiin buu yiri wax badan ma sii socon doonto, waxaana jirta cabsi badan oo ah in marxaladda faafiska aadka u ballaaran si dhaqso ah loogu gudbo, iyadoo ay jiraan buu yiri astaamo yaryar oo muujinaya arrinkaasi haddii xaaladdu ay sidaa hadda ku sii socoto. dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in tirada dadka isbitaalka u galay cudurka ay soo laabmeen, laakiin haddana nasiib wanaag xaaladda isbitaalada ee dalkan ay tahay mid aad u degan, wax walbana la xakameeyey oo gacanta si fiican loogu hayo. dhinaca kale, kaaliyaha dhakhtarka sare ee isbitaalka jaamacadda ee Hus, Eva Ruotsalainen, ayaa iyaduna shir jaraa'id oo ay qabatay waxa ay ku sheegtay in xaaladda caasimadda ee agagaarkeedu ay aad u soo xumaanayso, iyadoo arrinka ugu daranna uu yahay in dadku 80% ee ah kuwa cudurku uu ku dhacay aanay garanaynin halka ay ka soo qaadeen ama cidda ay u nuglaadeen. Eva Ruotsalainen waxa ay tirisay goobaha ugu badan ee dadkii laga helay viruska ay ka soo qaadeen cudurka, kuwaasoo kale ahaa 15 xafladood oo kale ah aroosyo, xafladiimeedyo, dhalasho, kuwaasoo kala bar dadkii uu cudurku ku dhacana bay tiri si aad ay ugu xanuunsadeen. sidoo kale goobaha cudurku ku faafay waxaa ka mid ah xarumaha hiwaayadda ee isboortiga, gaar ahaan ciyaarta loo yaqaano xeegada barafka ama ice hockeyga. sharciga cudurrada faafa ayaa la doonayaa in lagu dabaqo ururada diiniga iyo goobaha cibaadada lagu sameeyo. xilligan haatana ururada diiniga ah iyaga ayaa go'aan ka gaari kara arrimaha ku saabsan xadaynta inta qof ee isugu imaan karta goobaha cibaadada, waayo dastuurka dalka ayaa wuxuu damaanad u yahay dhinaca xorriyadda diimaha. wasaaradda arrimaha bulshada iyo caafimaadka ayaa waxay baarlamaanka u gudbisay tala soo jeedintooda ku saabsan wax ka bedelista sharciga cudurrada faafa si ay u suurto gasho in howlaha xadaynta ee lagu xakameynayo ka hortagga viruska loo isticmaalo si ballaaran, islamarkaana ay saameeyaan dhammaan xitaa ururada diiniga ah, iyadoo aanay jirin waxyaabo gaara oo ka baxsan awooddaas.
wasiirka sayniska ee dhaqanka Annika Saarikko ayaa waxa ay sheegtay inay iyadu damacsan tahay in ay isugu yeerto wakiilada ururada diiniga si ay ugala xaajooto dib u cusboonaysiinta sharcigaas iyo suurtagalnimada ah in sharcigaas lagu dabaqo ururada diiniga ah iyo goobaha cibaadada. waxaana ay wasiiradu sheegtay in inta ugu badan ururada diiniga ah iyo masaajiddu ay howlihii looga hortagaya fayruska corona xilligii guga la soo dhaafay ay u qabteen si mas'uuliyad ku dheehan tahay oo ku dayasho mudan. waxaa jirta haatan in maamul goboleedyadu ay gaareen go'aano lagu xadeynayo tirada inta qof ee halkii mar kulmi karta. go'aamadaasina ma qabanayaan ururada diiniga iyo goobaha cibaadada maadaama sharciga xorriyadda diinta waddankaga jiro. arrinkan waxaa si gaara u soo kiciya ka doodistiisa kadib markii kaniisad ku taalla magaalada Yuvaskula ay qabanqaabisay munaasabad diini ah taasoo sababtay in ay fayruska u nuglaadeen dad tiradoodu gaarayso 700 oo qof oo la geliyay karantiil, ilaa 50 kalena laga helay cudurka fayruska corona. sida dastuurku uu dhigayo, sharciga xorriyadda diimaha ayaa u ogolaanaya ururada diiniga ah in ay si xorriyad buuxda u leeyihiin samaynta cibaadadooda. gugii la soo dhaafay markii uu sida xoog gala uga dilaacay xanuunka safmarka corona dalkan Finland oo ay dowladdu gelisay dalka xukunkii degdega ahaa, ayaa ururada diiniga ee islaamka iyo masaajidda intooda badan waxa ay u hoggaansameen amaradii ka soo baxay xukuumadda Finland, walow aanay si toos iyaga u khusaynin. hase yeeshee si ummadda caafimaadkeeda loo ilaaliyo islamarkaana looga qayb qaato dadaalka ay howlwadeennada dowladdu ugu jireen ka hortagga fayruska corona ayay masaajidda iyo ururada islaamku go'aan ku gaareen in la xiro goobaha cibaadada. ra-iisul wasaaraha dalkan Finland oo iskaga soo baxday shirkii golaha midowda Yurub maanta kadib markii karantiin la geliyey. ra-iisul wasaaraha dalka Sanna Marin ayaa ka soo baxday shir golaha midnimada Yurub ay maanta lahaayeen, waxaana ay dib ugu soo laabatay dalka Finland. Sanna Marin waxa ay Arbacadii la soo dhaafay baarlamaanka dhexdiisa isla joogeen xildhibaanka la yiraahdo Tom Packlén oo ka tirsan xisbiga Finishka asalka ah Perussuomalainen kaasoo laga helay fayruska corona. waxaa intaa dheer oo ay ra-iisul wasaaruhu sheegtay in ay xitaa wiishka isla sugayeen oo ay aad isugu dhowaayeen. ma aanan wada hadlin, laakiin haddana waan isku dhoweyn. sidaa awgeed waa muhiim inaan qaato talada madaxa ammaanka ee golaha dowladda oo ii sheegay inay wanaagsan tahay inaan isaga soo baxo shirka si aan u muujino taxadar, ayay tiri ra-iisul wasaare Marin. ra-iisul wasaare Marin waxa ay ka codsatay intii aanay shirka ka soo bixin ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Stefan Löfven inuu isagu inta shirka ka dhiman ku matalo magaciisa dalka Finland. Sanna Marin maanta ayay dib ugu soo laabatay dalka, waxaana laga qaadayaa saamiga baarista corona, kadibna waxa ay u wareegi doontaa gurigeeda shaqada ee ka sarranta halkaas oo ay ku geli doonto karantiil. xildhibaanka la yiraahdo Tommy Packlén oo laga helay fayruska corona kana tirsan xisbiga mucaaradka ee Finishka asalka ah ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha inay tahay mas'uuliyad ka carar. wuxuu bartiisa Facebookka ku soo qoray in Marin ay qolka uu ku jiray meesha ugu dambaysa ka fadhiday iyadoo weliba afshareerku u xiran yahay, sidaa awgeedna ayaan isu dhoweyn ee hawshan ay marmarsiya ka dhiganayso. wuxuuna ku eedeeyey in ay sababta ay shirka uga soo baxday ay tahay mas'uuliyad ka carar. maalmahan dambe ayaa xildhibaanada xisbiyada mucaaradku waxa ay xisbiga talada dalka haya iyo ra-iisul wasaaraha ku eedeynayeen arrimo la xiriira qaabka dowladdu u maamushay ka hortagga fayruska corona. magaalada Tuusulana wararka ka imanaya dad kooxa ayaa u nuglaaday fayruska. garoonka lagu ciyaaro ciyaarta xeegada ee ice hockeyga ee ku yaala magaalada Tuusula ayaa dad kooxa oo joogay halkaa waxay u nuglaadeen fayruska corona, waxaana garoonka ku sugnaa ciyaartoyda kooxaha Tuusula iyo Hovinka ee ciyaarta xeegada ama ice hockeyga. waxaana dhammaantood ay u nuglaadeen fayruska corona kadib markii qof cudurka laga helay uu joogay goobta. karantiil ayaa la geliyay dad gaaraya ilaa 50 qof. haatanna wararka guud ee caalamka ee ku saabsan fayruska corona. qaaradda Yurub oo aad moodo haatan in ay ku jirto xilligeedii ugu adkaa ee soo mara ee fayruskan corona ayaa dalal badan oo ka mid a waxa ay la tacaalayaan hawshaasi. dalka Holland ayaa maanta laga diiwaangeliyay tiradii ugu badneed ee laga helo fayruska corona kadib markii 24 saac la soo dhaafay laga helay fayruska dad tiradoodu gaarayso 7984 qof. labadii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa tirada guud ee laga helay fayruska waxa ay ku dhowdahay qiyaastii 80,000 oo qof. dalka Holland tirada u dhimatay fayruska corona awgees ayaa gaaraysa 6,700 oo qof.
dalka Poland ayaa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaas waxaa maanta u dhintay fayruska corona 132 qof 24 saac la soo dhaafay waxaana laga helay fayruska tiro gaaraysa 7705 qof. guud ahaan waxaa dalkaas Poland laga helay 158,000 oo qof oo uu ku dhacay fayruska corona waxaana tirada guud ee dhimashadu ay haatan maraysaa 3440 qof. dalka Azerbaijan wararka ka imanaya waxay sheegayaan in dowladda dalkaasi ay ku dhawaaqday in la joojin doono dhammaanba gaadiidka metroga ee isaga dhex goosha caasimadda dhexdeeda inta u dhaxaysa 19 bishan aynu ku jirnay Oktoobar ilaa iyo 2 bisha 11aad. waxaana xukuumaddu ay sheegtay in arrinkaasi uu yahay tallaabooyin ay kaga hortagayso faafista fayruska corona. Azerbaijan waxa ilaa iyo haatan laga helay fayruska in ka badan 43,280 qof waxaana u dhintay 619 qof. dalka Jamhuuriyadda Czech ayaa haatan waxaa lagu soo waramaya in xaaladda fayruska corona ee ka jirta dalkaasi ay aad u soo xumaanayso kadib markii 24 saac la soo dhaafay laga helay fayruska tiro gaaraysa 9,721 qof. wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ayaa sheegtay in tiradan ay tahay tii ugu badneed ee laga helo fayruska tan iyo intii cudurkan safmarka uu ka bilowday dalka Czech. dalkaasi Czech oo tirada dadkiisu ay tahay 10.7 milyan ayaa haatan dalka ugu daran qaaradan Yurub ee xaaladda fayruska corona ee aadka u adag ay ka jirto. waxaana tirada ilaa iyo haatan laga helay fayruska tan iyo intii cudurku u bilowday ay noqonaysaa 149,000 oo qof. haatanna waxaanu si kooban u eegi doonaa dalalka ugu daran caalamka ee xaaladaha ugu badan ee fayruska corona laga helay 24 saac ee lasoo dhaafay. kaalinta koowaad waxaa ku jira dalka Mareykanka oo 24 saac ee lasoo dhaafay laga helay fayruska 18,047 qof waxaana 24 saac ee lasoo dhaafay u dhintay fayruska tiro gaaraysa 308 qof. tirada ugu guud ee cudurka ee laga helay dalka Mareykanka ama uu ku dhacay waa 8.2 milyan oo qof waxaana u dhintay 223,025 qof. arrinta fayruska corona ayaa haatan qodobka ugu kulul ee labada nin ee ku tartamaya madaxtinimada dalkaasi ama doorashooyinka madaxtinimada dalka ee dhowaan 3 November lagu kala bixi doono ay haatan doodoodu khusayso, iyadoo ninka kale uu ku eedeynayo qaabka loo maamulay. ninka u tartamaya jagada madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ayaa ku eedeynaya Trump iyo xukuumaddiisa in ay aad hoos ugu dhigeen ama ay yareysteen arrinka xanuunka fayruska corona, halka Trumpna uu muujinayo in Biden iyo kooxdiisu ay yihiin dad wadnaha la isla markaana si aan loo baahnayn uga baqaya fayruska corona kana badbadinaya arrinkiisa. doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Mareykanka ayaa lagu kala bixi doonaa 3 bisha November. dalka Hindiyana waxaa 24 saac la soo dhaafay laga helay fayruska 55,159 qof waxaana u dhintay tiro gaaraysa 770 qof. tirada guud ee uu ku dhacay fayrusku waa 7.4 milyan waana dalka kaalinta labaad caalamka kaga jira waxaana u dhintay 112,916 qof. Brazil oo iyadoo kaalinta saddexaad ku jirta ayaa 24 saac la soo dhaafay waxaa laga helay fayruska 28,523 waxaana u dhintay tiro gaaraysa 713 qof. tirada guud ee cudurka uu ku dhacay dalkaasi Brazil ayaa 5.1 milyan waxaana u dhintay 152,000 oo qof. Ruushka oo qaaradda Yurub dalalka ugu horeeya ku jira ayaa 24 saac la soo dhaafay laga helay fayruska 15,150 qof waxaana u dhintay tiro gaaraysa 232 qof. tirada guud ee uu cudurku ku dhacay waa 1.4 milyan oo qof waxaana u dhintay 23,723 qof. Ingiriiska waxaa 24 saac la soo dhaafay laga helay fayruska 15,650 qof waxaana u dhintay tiro gaaraysa 136 qof. tirada guud ee cudurku uu ku dhacay waa 689,257 qof waxaana u dhintay 43,429 qof. ugu dambeyntiina dalka Sacuudiga oo ay dad badan rajeynayaan inay la socdaan xaaladda fayruska corona maadaama cumradii ay ku xiran tahay haatanna cumradii gudaha la furay isla markaana ay Sacuudigu sheegeen in cumrada dibaddan ay si tartiib ah u furi doonaan ayaa xaaladda fayruska ee ka jirta dalkaasi ay haatan aad uga soo raynaysa
marka loo barbardhigo xaaladii ay ahayd bilowga cudurka iyo horaantii dayrtanba. waxaana 24 saac ee lasoo dhaafay laga helay fayruska 433 qof, waxaana u dhintay tiro gaaraysa 17 qof. tirada guud ee cudurka uu ku dhacay ama dadka laga helay cudurka ee dalkaasi Sacuudigana waxa ay gaaraysaa 341,495 qof, waxaana u dhintay 5,144 qof. wararkii ku saabsanaa arrimaha fayruska dalka Finland iyo caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM, dhegeystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhageysanayo, intaasi ayuu ku egyahay. tan iyo intaynu dib u kulmi doono mid lamida fursadan, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.